كوني بادعي يجني القسار قبريو عماصل قبريو عماصل قودي بادعي يجني القسار كيسة فرماتي وشو حسيت فرماتي برنامج كنا maanta sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona insha Allah inaan xasuusino walaalahay Soomaaliyeed ee abaaruhu haysan waddanka Soomaaliya iyo laftirkeeda waa xusi doona insha Allah qaybta ayaan siin doonaa barnaamijka marka waxaan caawa idin daadihin doonaa aniga waa Axmed Abuukar Jalwo Axmed Taajib iyo weliba Abu Ismaaciil insha Allah tacaala waxaa barnaamijkan si toos ah qabka usoo geli doona dhawaan Abdullaahi Yahdo ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya madaxweynaha Mahmud ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Xasan Cali Khayre qabka toos ah usoo geli doona insha Allah tacaala oo jaaliska uu ka tirsanaayo Soomaaliyeed loo hadli doona waxaana marka u horeyso inaan ku furto aayadaha Qur'aanka Kariimka oo dabcan ah wax lagu furto ugu qeyb badan waxay noo akhrin doonaa walaalkay Midnimo ku soo dhawow من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها marka rasuul waa farxade barnaamijkeena hadda sii guda galo haddana waxaa loogu xigo deed cabdiyaare oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada shirkanu waa soo dhaweynta madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo sidoo kale sagootinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo kale waxaa ku jira team ka qaybgalaya ama wuxuu ururinaya abaaraha waxaana inoo daadahayn doonaa haddii la yiraahdo Axmed Abuukar Jalwo Axmed Taajir ku soo dhawaad Axmed Taajir waa maasantii uu mahadsan yahay dabcan mar walba oo barnaamijka dabaaldeg la sameynayo dad baa isku xilqaama barnaamijka quruxda u jeedaan waxaa ka shaqeeyay oo loo soo qabanqaabiyey waa jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway magaalada Oslo xabadan quruxda badan ayay ugu talagaleen inay ku soo dhaweeyaan dowladooda cusub uu maaragtay wajaaraha u hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo barnaamijka dabcan caawa Abdullaahi Yahdo waxyaabo kala duwan oo taariikhda Soomaaliya ahaan lahayd iyo dowladnimada iyo waxyaabo fara badan ku soo qaadan Abdullaahi Yahdo waxaan rabaa inaan mataqaanaa markaan aan maaragtay ku guda galo qaybta salaadiinta halkan caawa laba fadhida si ay nooga sheekeeyaan dabcan waayo-aragnimadooda dowladnimada marka laga hadlayo ay tahay waxaan rabaa marka ugu yeero jaamac oo ka mid ah cuqaasha ku nool magaalada Oslo warahmatullaahi wabarakaatuh dadka Soomaaliyeed oo degan Norway gaar ahaan Oslo oo xafladan ka soo qayb galay loo dhigayo isbedelkii sida fiican la isugu wareejiyey ee Soomaaliya ka dhacay 8 Febraayo oo laba madaxweyne saddex madaxweyne ayagoo gacmaha is haystaan ay isku wareejiyeen baa xafladan ugu talagalay iyo labada guddoomiye baarlamaan marka waxaan leeyahay xafladda tani waa hambalyo hambalyadana ku saabsan dowladda cusub iyo tii tagtayba sidii ficneed oo dimuqraadiyada lahayd oo wadamada aynu joogno annagu aynu ka baranay ama aynu aragnay sida ay isugu bedeleen ayagoo gacmaha is haysta saddexdoodii
madaxweynihii ku-meelgaarka shariif iyo madaxweynihii aan ku-meelgaarka ahayn xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii 8 maarso qabsaday maxamed cabdullaahi farmaajo saddexdoodoo gacmaha saa isu haysta ilaahay baa awoodda iska lahaa wax fiican bay ahayd baarlamaanka oo 2 golo ah golana uu yahay golaha hoose iyo golaha sare oo golaha odayaasha iyo golaha baarlamaanka ah iyo labadeedoo guddoomiye baarlamaanbana waxaan u diraynaa hambalyo iyo salaan maadaama aanu reer Oslo nahay ama reer Norway anagoo matalayna nahay taana waxaan uga gudbayaa intaas waxaan leeyahay marka xafladan waxay ku saabsan tahay caawa hambalyadaas inaan ka hadalno oo aan u hambalyayno ilaahay inuu la qabto aan faatixada u maro aan ugu ducayno dal Soomaaliyeed oo wanaagsan oo dhisan oo kala dambeyn iyo maamul leh say xilka isugu wareejiyeen ilaahay inuu ugu qaado بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقاشة هي صلاة يا أبوي هندة يا مالتي هواين كانوا خروج بدنا نعيش فدي وهذا الشيء ويهيسو اللي ينادينا أن لما من كل حال السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii ummad meesha meel isugu timaado waa inay cala loo mahad celiyaan awalan waxaa mahad dheerkeed iskale alla casa wajal oo naga dhiga dad muslimiin ah nama keliyey inaan goobtan isugu nimaado annagoo ah wadamada Soomaaliya adduun ka tirsan oo ayadooda ka tashanaya waxaa kaloo mahad bashariya iskale dadka soo abaabulay xafladan qiimaha badan haddii ahaa lahayd muruqooda ama maalkooda ama maskaxdooda inahaas ayaa mahad bashariya iska leh waxaa kaloo mahad bashariya iska leh saxaafadda hadda na duubaysa ku gaarsiinaysa xafladan qiimaha badan leh daqiiqada gudood ajendaha shirka oo xafladan meesha loo yimid oo ah soo dhaweynta dowladda hadda noo curatay iyo sagootintii dowladdii hore u shaqaynaysa waxay dhaqaajiyey erayadii meeshan ka yeerayey aniga oo idin salaamaya dhammaantiin 14 iyo boqolka quraanka cadadiisa ku salaamaya idin jecel dad nasiibku daadihiinayaan ciduhu diidayne nasiibku daadihiinayaan ciduhu diidayne dadilaahay baxshaa lagu daagame dowlad waxaan iniyaan helaan nodaninayay anistayna dulkii xun baa dilay naaftiisiiye haddii kale tugagaana cunay daniyayagana dibjirkeeda waaligeed rag baa dadahayn jiray jumcadaiyo leegaduuna way wada daadaleen cabdullaahi deebin buu lahaa yudugaad cunine cabdullaahi deebin buu lahaa yudugaad cunine dad nasiibku daadihiinayaan cidugu diidayne deebdii ilaahay baxshaa lagu daagamene dowlad waxaan iniyaan helaan nodaninayay anistayna dulkii xun baa dilay naaftiisiiye haddii kale tugagaana cunay daniyayagana intaa haddii aan ka gudbo walaalayaal waxa weeyaan dhib baa loo soo maray calankaas aad arkaysaan ciyaar uma usaymaan 1954 12 Oktoobar ayaa la saxiixay oo Soomaalidu iyadoon cidina xor ahayn ayaa la saxiixay magaalada Muqdisho oo markaa la qabanqaabinayay sidii daakhiliye aan u heli lahayn daakhiliyadii ay leegadu ay hogaaminaysay oo markaa uu liidarka ka ahaa ama hoggaanka ka ahaa Cabdullaahi Xuseen Maxamed waxaan markaa dib ugu soo noqonayaa khudbadii iyo ujeedadii bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan ku xusinayaa ra'iisul wasaaraha
ummadda madaxweynaheenu doortay mudane xasan cali khayre oo ah nin reer cusla ah oo aanu si wanaagsan u garanayno isaga labadoodaba laba nin oo dhalinyara weeye maxamedna waa soo wada shaqaynay oo muxuu ahaa wasaarad baan usoo shaqaynay xasanna waa nibaanu halkan aanu isugu garanay waxaan ku xojisiinayaa guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaahiri waxaan ku xojisiinayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka mudane cabdi xaashi waxaa weeye dhammaantood waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay xilka ku garab qabto ayaanu rajaynaynaa waxaan sagootinaynaa madaxweynihii hore iyo maamulkiisii mudane xasan sheekh maxamuud oo si sharaf iyo xikmad iyo dadnimo ay ku jirto u wareejiyey xilka waxaana ka codsanaynaa inuu muxuu ahaa dowladda iyo madaxweynaha inta uu kaga waaya aragsan yahay ula shaqeeyo dadkeenna reer Oslo ee walaalaha ah waxaynu nahay dad mar walba isku xidhan dad aan meelna ku kala tegin waxaynu ku dadaalaynaa innaga oo siyaasiyiinteenna iyo ururadeenna waaweyn iyo odayaasheenna iyo dumarkeenna iyo carruurteenna isku xidhan in aynu meel kasoo wada jeedsanno ishuri mayno maalin walba xaflad baa jirta way soconaysaa maalin walba geeri baa jirta maalin walba guur baa jira meel walba meel lagu kala tagay ma jiro marka waxaan leeyahay mar walba aynu isu soo dhawaano waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو waxaan halkan u fadhinaa soo dhaweynta madaxweynaheena cusub iyo siisay wootinta madaxweynaheena hore Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraheena cusub waxaan aaminsanahay maanta midnimo kama maarano Soomaaliya hadanahay qof walba uu dhigtooday waa la soo kala qaxay 26 sano 27 sano adduunka meeraysanayay maanta waddankeena xaaladdu ku sugan yahay iyo situationkiisa waad ogtihiin qof walba ka dharagsan yahay Soomaaliya maanta meesha ay marayso madaxweynahan hadda malaynaysa qof walba waxaan maqlaay farmaajo waxa sameeyo isno ma aha sidaas ma aha farmaajo can do nothing without us everybody oo Soomaali ah waxa loogu leeyahay xaq in uu ka qayb qaato waddanka dib u dhisidiisa waddankeena wadamo badan baa daris nala ah wadamada badan ee dariska nala ah waddankeena faragelin badan bay ku wadaan xag siyaasadeed iyo xag xoogga maanta waxna lagu wada hayaa faragelin qof haddaad malaynaysaa madaxweynaha keligiisa inuu qabanayo ama ra'iisul wasaaraha keligiisa inuu qabanayo ma qabani karaan marka guddigeen oo isla wada soconno baa waxaan qabani karnaa wax baan bedeli karnaa annaga guddigahaan Oslo wax weyn baan qabani karnaa maanta haddaan isbitaal ku aadno wax weyn baan qaban haddaan dugsi ku aadno ama iskuul ku aadno wax weyn baan qaban marka qof walba wiisha guddiga la iskaga dhigo waxaan maleynayaa cali dhaanta hees uu u qaaday Muqdisho baan maalin dhaweed dhageystay heestaasi waxay leedahay midigta dhaanteeda dhaantaashu midigta keligeed wax ma qaban karto markii dadka ay gacmaha isqabsadaan unbay meel gaarayaan dadka dhan ama hadalkeena meel uu gaaray gacma isqabsi marka maarmi waddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu abuuray waddan aad u qurux badan annagana ilaahay subxaana wa tacaala wuuna doortay muslim buu naga dhigay dadka marka muslim laga dhiga waa la doortay way waan dooran lahay guddigeen ilaahay naguna karaameeyey subxaana wa tacaala haddana Soomaali buu naga dhigay Salaamu calaykum Hello. Ami maqli kartaa hadda waa kuma waa qofkii aad u igu xigay okay hala mudan ra'iisul wasaare jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway ayaa u fadhisa xafladda soo dhaweynta dowladda cusub waxayna hambali u dirayaan adiga iyo madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan jeclaanahay inaad laba kalmood tira قدرنا كفر سماحات إن شاء الله. سوري. هواكم بالله سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن رجينا هنا في ستة عام وكفان. سفع عن الوهم الله.
ومعسلتين حفلة مستان صدرين في الصومالية الإسرائيلي يقولوا له مع الأهلين إذا كفلنا ولا كفلنا يا سيدي قالوا وحن جبنا باي ولا هيك كده نفس جانا لكن دولة السعودية كتبت وحنا نجين إن إلى الشعب كان طبعا دولة طبعا كمان وحياة طبعا استدلا أو تلقوا رجالي أنا وحياتي دون واتر وحنا موجود الناس واحد صحيح معلومة بس هو جماعة يعني وده وعلى الجزء فقولي واحدة حتى أقول لك الفقال إذا ما أنت يقول كريم تيجي على عقد تيجي على الوضع وحاسنا يعني قلبه يتحمل كده على الصوماليين نلو بيجونا وحنزل جديد مع بعض على كده مدخلوا معلومات وصعدوا على صندوقنا إن يكون هو الصوماليين وكل الثمانية كفاية الصوماليين عاوناتنا في تلك السنة عن كذي وهكذا عند الله يناديه دولة إن شاء الله صنع دولة أمريكا صنع الحين خمسة دولة موجود صار كذا اللي يعني يتوقع كما قلت بس دي كلا كين كذا طبعا وحتى الكل وتلقي هنا عن كذي تدعم تفتح سوسو الإنسان واحد ناجح في الداعي كذا كي أيوه انتهاء حكمين كتاب حكميتان كان يملك حمد الجوجا يعني جماعة تطبقوا عندك كلمة الكبيرة تتيالن كمسلمات كأوليستا كيكويتينتا من جماعة خارجة هرمارينتا يوطن كان في دار لا وطن تستعيش إلى وتعطلا لو رسمي لو أتني كودنا إن شاء الله يقولوا ورشوا أرعى وقف للوقت الجديد كعب الصوماليين يذكر الأحسان الوقت نروي ومحسنتي وأنا إني ما إن شاء الله وقت عنده وأنا لذي كتبنا waa mahadsan tahay jaale ra-iisul wasaare intaas ka badan shaqadaada kaa mashquulimayno ama xafladeena sii wadanaynaa abaarahan waxaan kuu sheegay caawin halkan ka socdaan tabarucaad iyo dhaqaale aruurin aan ku taageerin walaalahayna abaaraha u saamaysay aad waa mahadsan tahay mudane ra-iisul wasaare xasan cali khayr بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxadka ayay caawa ay tahay inaan ka qayb qaato munaasibadan caawa oo aynu ugu talagalnay in aynu ku soo dhaweyno madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed ee la doortay bishii february ee lasoo dhaaftay sideedeedii mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna farxadaya inaan isla soo dhaweeyey walaalkay xasan cali khayre oo noqday ra-iisul wasaaraha isaguna dowladda federaalka ee soomaaliyeed xasan waxa weeye member ama xubin ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed norway magaalada oslo waxaan runtii jecelahay inaan iyadana xuso inay muhiim tahay in xoolkani uu yahay hool taariikh lagu mudan 2006 ayaa waxaanu ku qabanay shirayga Somali Peace Conference dad badan oo ka mid ah ka soo qayb qaateen taasaan ugu diyaargaroobaynay in shacabka Soomaaliyeed ee reer Norway ay awoodooda dib ugu celiyaan iyo dibdhisidda dalkoodii hooyo howlkan waxaanu ka soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari 23 iyo 24 bishii May 2006 halkan ayaanu ka soo saaray wuxuu tegay Nairobi wuxuu ka shaqeeyey processkii constitutionka ama dastuurka Soomaaliyeed
waxaana loo doortay mar labaad ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya runtii waa guul ay u tahay beelow gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad baa runtii mahadsantihiin waxaa markaa runtii unaan jecelahay inaan idin xusuusiyo in labada munaasabadood in caawa halkan u joogna ay yihiin munaasabada ah in aynu xusuusano dalkeennii hooyo oo ay abaara xumi ku habsadeen oo mood waxaweeye baad iyo biyatoon aan lahayn xoolay dhimanayaan dadkii dhimanayo nafleydii kale ee duurjoogta ay dhimanayso dhibaatadaas oo ah mid aafo ilgu habsatay soona noqnoqotay sidii la sheegay anigoo ku raacsan guddiga abaaraha oo xilgaala iska saaray in ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ka dulqaado abaarta iyada ah laakiin ay u baahan tahay ficilkaas aynu maanta ka geysano tabaruc wixii aynu awoodno isna waa qodobka labaad qodobkayga saddexaad aan runtii jeclahay inaan ku daro waxa weeye si gaar waxaan u hambalyaynayaa walaalkay xasan cali khayre oo ah saaxiibkay marna aanu isla soo dhiganay runtii ka wada shaqeynay jaaliyadda soomaaliyeed marna aanu jaamacadda isla bilownay 94 isla dhamaynay marna aanu ka wada shaqeynay arrimaha humanitarianka runtii farxad gaara ayay ii tahay anigoo idinkeeda matalaya waxaan u dirayaa salaan gaara waxay u xasan codsaday oo keliya in dadka soomaaliyeed halka degan hadday nahay reer norway iyo soomaalida kaleba inaynu marka hore usoo ducayno number 2 hanaanka dimuqraadiyadda iyo hanaan wadaagana in la sii wadi doono garab ayay nooga baahan tahay dowladdeenu dalkeennuna garab ayay nooga baahan yahay waxaan leeyahay guulaysta oslana ha guulaysato magacayga waa Maryam Xuseen Soomaalida badan waxay idin garanayaan laakiin waxaa ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed oo magaalada Oslo degan sanadkan inta lagu tartamayo baarlamaanka isku Kenya doorashada September waa doortii hore ee dowladda Soomaaliya ka dhisatay rajadii iyo amirka aan ka lahayn Soomaaliya iyo nabadeeda in welina way ugu jirtaa weli waxaan aaminsanahay haddeertaan kadib inay wadankii weli uu sii dhismi doono nabadda in la sugi doono Nabadna waa lagu deegaa
نوديع وقامكي داعيو دفاعها قرانكيو الجروح شعب الرابو هريك يا قراش هذولا إلي دورتا مفوران وقامكي داعيو دفاعها قرانكيو الجروح شعب الرابو هريك يا قراش هذولا إلي دورتا مفوران وراح الدجن كاين بدوينو صاحو الشوق بسم الله الدولة دولتيا دولتيا دالكي ودادكو مرة بها كدالينينا وراح الدجن كاين بدوينو صاحو الشوق سونا بدونا دوجيا دوجيا دالكي ودادكو مرة كدالينينا الحمد لله والسلام على رسول الله. بدي أقارنا ميديا فنانينتا كنا جالين الصومالية العوض الفنية من السلام يا كلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال إلهي بمحمد أوتا أكن سوق أنك نعاوه ونور السيئة بحفلينه وأهلنا نفرح سنة هاي إن بدن أيين يدري أجرهم أي قرار وأن يسرين وحوضكان كسرنا إن بدن أيام مسلمين ولكن هل مسلمون هجاية إلهي بمحمد أو هدان هيسروا هنحفلينه أهلنا نفرح سنة هاي الدين يدري أي رجو مقرشي إلهي بمحمد marka labaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa kolleyba sida dadka dhalinyaro ay samaynayaan oo faraxsanayn madaxdeena cusub madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxda baarlamaanka dowladda oo dhan madaxda saraakiisha ciidamada kulligood ummadda soomaaliyeed marka labaadna waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu abaarta naga dulqaado oo uu roob aanu ku naahno oo xoolaheenu ku naahaan dadii biyo ilaahay na siiyo waxa weeye waqti dheer baanu runtii rajo xoogaa rajadu laga humay ilaahay waa mahadle waxa aanu maanta ku faraxsannahay waxa weeye in runtii taariikhda waddankanu taariikh buu leeyahay marna kor buu socday marna hoos buu socday maanta xaaladdeenu halka ay joogto waxay la mid tahay 1967 halkii ay joogtay 1967 waxaanu ognahay inaanu haysanay inagoo ahayn meesha curdina waddan markaa curdina oo cusub oo dadkeena dhan ay rajo qabaan in haddana aanu haysanay madaxweyne runtii la dhihi karo civic leader ayuu ahaa civic leader wuxuu ahaa aadan cabdulla cismaan allah yarxamhu civic leader macnaheedu waxa weeye hogaamiye dan gaara aan ka fakaraynin ee danta guud ee ummaddiisa ka fakaraya ayaa la yidhahdaa civic leader marka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kala mid yahay sidaanu aad iyo aad u rajaynayno insha allah inta hadda inooga muuqata aadan cabdillaahi ugu badan kala mid yahay waxa keliya oo aanu dardaarmayna walaalkan waxa weeye ummadda soomaaliyeed rajo weyn bay kaa qabtaa insha allahu wanaagay ku aragtay bayna kaaga qabtaa waxayna kaa rajaynaysaa natiijo weyn insha allah waxaan rajaynaynaa inaad taariikhda ku gasho sidii aadan cabdilla u galay oo kale waan ognahay sanadkii hore buug baa soo baxay la yidhaahdo Africa's First Democrats oo looga hadlayay professor ahmed ismaaciil sanad looga hadlayay aadan cabdille iyo cabdirasaaq xaaji xuseen qofka xiga ee hadda rajada isaguna ina geliyey waa ra-iisul wasaaraheena cusub mudane xasan cali khayre oo ah nin reer norway ah dhalinyaro ah aqoon-yahana aad iyo aadna maaragta aan u garanayo waxa uu galo iyo waxa uu gudo iyo wadaniyadiisa iyo dadnimadiisa waxa weeye isaguna cabdirasaaq xaaji xuseen ayuu kala mid yahay insha allahu siduu xasan laftiisuba inoo sheegay mabda-iisu waxa weeye karti iyo hufnaan waxa weeye halka ay joogaan
oo wanaag baa imanaya mustaqbalka maasuqa ku yaraanaya dalka wax loo qabanaya isagana intaan ka sugaynaa waxaan leenahay wadankeenu waqti dheer ayuu hoos ku sii socday in dadka laga soo saaro waxay u baahan tahay hal qof kartidiisa laba kuma filna kumanaanka Soomaalida ah ee aqoonta leh ee professionalska in la howlgeliyo sida Cabdisaam Xuseen Xaaji Xuseen uu u yiri waa justo in post justo si uu yiri ka doonayna sida aan leenahay xasan khayr insha Allah innaga waxaan nagala rabaa waxa waaye kow horta in qof waliba uu soo arko adduunka wadaniyada waxa citizenship waa wax qaali ah qofku ummadku ka tirsan yahay adduunkana waa la qaybsaday maabka adduunka markaad fiiriso iyo xiriiryaha u dhexeeya ayaad fahmaysaa in la qaybsaday wadanka adduunkan ballaaran waxaan ku leenahay meeshaas sabankaaba ku leenahay meesha sabankaahi waa meel dad intaan annaga ahayn ayaa aragta macnaha iyo qiimaha ay leedahay laakiin annagu ma aragno waxaa loo baahan yahay inaanu aragno sabanku macnaha ay adduunka ka leedahay sabanka ilaahay baa nagu nooleeyey kumanaan sanaan ku noolayn haddana waxa weeyaan waa meeshaan ku noolaa doono carruurteenu ay dhexli doonto wey war sabanka iyo qadkiisa iyo nimcadiisa saan u ilaashan lahayn ayaa qof walba laga rabaa inuu ku fikiro qof walibana tabartiisa laga rabaa kii waxa ugu yaray waa duco uguna qiimo badan in fact waxa ugu fudud marka la farayo waa duco laakiin ayadaa ugu qiimo badan maanta madaxdeena aanu ducayno wadankeena aanu ducayno ilaahay aanu barino in badan baa shirqoon iyo lugooyana lala damacsanaa waxaan ka badbaadnay waxay ahayd ilaahay fadligiisa iyo ducadeena ayaan ducaysanay waxaan nagala rabaa waa isku duubnay waxa weeye innagoo heli karna inaan laba wadan yeelano ama ka badan oo aan halkana waqtigu habboon yahay maanta keenina waqtigu habboon yahay karna oo carruurteena geysano ma aha inaan hal meel ku dambanaano walaalo waxa weeye wadankeenu waa la kala leeyahay adduunyada geeska afrikaanu leenahay wadankeena aanu xafidano aanu isku duubanno madaxdeena aanu u duceyno cid alla cidda awoodi kartana oo online u heli karta ay qof dowladda ka mid a la hadashana ha tiraahda ammaana tiyaana ammaanada inoo xambaara ha tiraahda carruurta yaryarna sidoo kale aanu dareensiino wadaniyadda oo ku tarbiyayno si qarannimadeena usii socoto oo ay ku waarto waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi يا
geesi rabbi siiyey garashadeen isana u gargaara shacabku aan godobka gelin ee ilaahay gacanta weyna gargaar ku siiyo dadkii rabbi loo garto aan ku garanayno haddaan dumarnahay annaga dareesha tuban war haddaan dumarnahay annaga dareesha tuban annaga dibiyo haradan maroogu daray annaga dibiyo xamudan maroogu daray asayba nala ku tuban daryeelna helin asayba nala ku tuban daryeelna helin kuwayaan dihanay annagayna dilahayaan ralow dunigaasku idinku dushiinayahay idinkaa qarankeeni duniyo damiir lahayn ee dib isugu noqdo dambi dhaaf ilaa wasala oo dowladda la shaqeeya iyadaanu dooranay ama dalka noo dhaafanaya aladinaya waxaan u mahad celinayaa guddiga soo qabanqaabisay caawa xafladda taliwa hambalyeynayo madaxda qaranka ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal mahadsantiin sida aad ku sharafteen oo ku casuunteen inaan laba bari ka hadlo anoo khudbad diyaarsan haddana ku isku day waxa weeye walaalayaal waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha qaranka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxaan kaloo leeyahay hambalyo xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha qaranka waxaan kaloo leeyahay hambalyo cabdi xaashi madaxa aqalka sare ee baarlamaanka waxaan kaloo hambalyo leeyahay professor jawaari mar labaad loo isbooreysiiyey marka xiga walaalayaal waxaan leeyahay walaalahayga sharafta leh ee Soomaaliyeed inta isku tirin walaalayaal madaxda waa loo duxiyaa xil markuu ilaahay u igmado waa inaad duca la garab joogtaan waa in aad mar kastaba salaada ugu ducaysaan faatixada u martaan ilaahay inuu xilkaa ku asturo ma fududo xil marka lagu dhiibo buraha diiday marka waxa weeye walaalayaal anu khudbadayda waxaan caawa ku yara dari inaan xoogaha sidii Edda Hamdi yar karbaashaan rabaa jaaliyadda Norway ee Soomaaliyeed waxaad ogsoontihiin walaalayaal tan iyo 2013 dowladda Norway dowlad waxaa qabsatay garabka midiga waxaa jira oo ku adkaysay nolol maalmeedka ajaanibka dalka kan Norway arrintaasi tu aniga kusaysan keligay ma aha nin wax bartaan ahay dalkayga iyo baan hadda dib dal baan leeyahay oo dhul baan leeyahay calan baan leeyahay baasaboor kullu yahay male identiteetka waxaan u dagaalamaan hantidayda u geliyay waxay ahayd in aan magacayga milgahayga iyo sharaftayda Soomaalinimo difaaco أنا وان الحمد لله محمدي والله سبحانه فرعيسو أي سعودي يقول بيقول بدن تاي فتح لينا تصمرتان بارما خليسة الزوج واجبنا أسبوع عذرنا واحد حلقة كهاري ما يهتم تاي إذا أحصلوا قد كرر بقية الصوماليات باجرة والله ما كوني يتطور وال تردد أي تحتي تاي كوني لين بقول وشرعي بقية هذا قاطي هذي تاي لو بقول وباسبورة وبروتات سه هذا قاطي هذي تاي شام بقول ولا رأي لقى قاطو باسبورة الحدود كإيه حتى أنا هاي سنة كور على شرط مرجع عريتو ويبادن تاي والله سبحانه وتعالى ما بسيطه نوجو هاي كليك واحد ولا يعني نقعد سنة إلى أن سمعنا جود الصومالية وقبيل كستان إلهي ما قبيل لا يدري يدي أنا قم دور أنا هنا صومالي ما دور إلهي ما يدور قبيل كان هاي إلهي ما يدور لكن هو حلو بهاي إن الدفاع عن دنتين نقود إن سمعنا حق حفيظ صومالي وإلهي هاي أون كور نوديبات كست نور كستايلة كي شغل لوتي كي كل لوتي كي شغل لقات كي كلمة لقات وين الحساب تلنا دولة النور ولا حساب تلنا وين الحسبية ولا حساب تلنا وين الأوكا وين الأوكا مال مارينا حسبية دورنا إنسان وين تكفي ستا وين تسكن حركات دنيا من الدفاعي ما كان هو ما الصومالي أغنية المنطقة قبلي رقبل ورا بالله عليك إلهي من يوداش قدها سماي سنو رأيك كنت هذا 24.5 نو صفر لكن نترى بدو تصبيس إيران واحد سكندينو والله سعودان باكستان دو وحي لينا هاي ما حكتو دو صوري صدح بيقولين وراها بارمانك إيوه نغا تيريا
annagu waa inaan yeelanaa oon xoogga saarnaa maanta qofka liistiga xisbigay doonto ha ahaato ee Soomaaliyeed ee liistiga u horeeya jooga waa inaan qofka waa inaan meesha sharciga lagu sameeyo ee golaha baarlamaanka dalka nooyo waa inaan qofku yeelanaa si uu la socdo waxa naloo soo maleegayo oon ula xisaabtanno maxay ahaydeen mustaqbalka walaalayaal dardaarankayu waa ka abaarna waa ka jirtaa xalay sababta la iga soo diray qof kastoo dibadda uga dhoofaya dalkeennii Soomaaliya $10 waa inuu bixiyo baa leeyahay abaarta billow iyo cabdiraas casayr ilaa raas kalbooni dadku waa dhammaaday xoolihii iska daayay dadkii baa baxay ilaahay ka yaaba 1 karoon iyo 200 karoon waxba nama shaahan ku xidhnay hal lagu rido dumarka dahabka ha furaan xoolay dumar wadaan maba dib uma dhaco dumarna horma na taageera hadda aan boorka iska jafaynaa wiilashii aad garanayseen ee geeska Afrika xiliyahooda ku wadayba hadda soo celinayna annaga aan dhiigooda ragiya ahalkan keliya annaga lagu baahanay inaan dalada ballan baan ii qaadaya haddaan ma ahay in aan ka shaqayn doono danta Soomaaliyeed dalkan cid kastoo sharci ku dhibaataysan aniga ila soo xiriira telefonkayga waa haysataan loo yari iyo lacag waxa u baahantiin anaan siinay walaalkiina Somalia Islam waxaan hambalyeynaa baarlamaankeena cusub waxaan hambalyeynaa madaxweynaheena cusub waxaan hambalyeynaa ra'iisul wasaaraheena cusub waxaan ka xanuunsanaynaa abaaraha dalkeena ka jira waxaana dhibaysa macluusha dalkeena ka jirta waxaa loo baahanya marka abaaraha iyo macluusha soo noqnoqonaya iyo dadka barakacaya maxaa keena dib baan ugu noqonaynaa waxaan u baahanahay qarannimo ay xageed ka bilaabataa wiil iyo gabar iskuxotay ayay ka bilaabataa qarannimo wiilka iyo gabadha iskuxotay qoys bay noqdaan qoyskaa waa tarmaa qoyskaa tarmay wuxuu dhalaa qaraabada way tarantaa qaraabada qabiil bay tartaa qabiilku wuu tarmaa qabiilku qowmiyad buu noqdaa qowmiyaddu way tarantaa qaranka halkaas ugu jira qarannimo marka micnaheedu ma aha dad hal qaran wada hoos jooga inuu midna dhereegsanaado faraxsanaado waqti walba wax cuno midna uu halkaas gaajo dadkeeda ku dhinto qarannimadu ma aha waxaa loo baahan yahay in la isu hiiliyo abaaraha waa laga hadlay waxay u baahan tahay gargaar waxay u baahan tahay tallaabo qaadis horey loo qaado dadku inay barakacaan oo ay abaaro ku jiraan mar walba waxaa dhaliya qabyaaladda sida xun u tarmaysaa dhalisa dagaalada joogtada ah ee soo noqnoqonaya oo ilaa haddadan aan idinla hadlayo socda ayaa keena abaaraha oo dadka sii barakiciya aniga in yar waan ka tilmaami doonaa hees cusub oo ku saabsan dhinacaas ayaan caawa idinla qaybsan doonaa idinkoo maasan way idinku cusub tahay balse xoogaa dhegihiina ilaa dhiciya
waxaan idinka digayaa dalkanaan dhammaaniyo inaad dadkaygu isdishaan waxaan idinka digayaa dalkanaan dhammaaniyo inaad dadkaygu isdishaan ama duugadaatini dagaan wiil kuma dhashee dagaan wiil baa ku dhintaa dabka holcaya daniya diribta colaada joojiya dabka holcaya daniya diribta colaada joojiya dalkiibay dumisayo uyuunbay naga dishee martida daryeeleyda darxumadiyo barakaca martida daryeeleyda darxumadiyo barakaca iryaanlo ulabanine iryaanlo ulabanine nabada doqo arkiyay nabada doqo arkiyay dabka holcaya daniya diribta colaada joojiya dabka holcaya daniya diribta colaada joojiya dalkiibay dumisayo malyuunbay naga dishee martida daryeeleyda darxumadiyo barakaca martida daryeeleyda darxumadiyo barakaca iryaanlo ulabanine iryaanlo ulabanine nabada doqo ayida nabada doqo akeya وين قبل كأناس أو سير واسينا أنا مقعد يروح على عبد إبراهيم مقعد وحي كتم بيا وحنا مرة يا صومالي مقعد وحي كتم بيا قبيل وين كتير يا مرة وحنا مرة يا عبد إبراهيم مقعد صومالي من كستوى إنك ينقبل وقالنا يا فكر كايسكا وحنا رأينا فرصة بحيو تلمام بحيو وهواوي كبحنا ونقول سيدي أنا بقادر قدر كلامات تالية تجارك تالية تجارك ونجوجينا تالية بود أو سومالية أيام كوب دليلنا كوب النجارك وقدر كلامات السمايل قدر كلامات دولة قبلية يا مامور قبلية وحنقول بورينا دولة سومالية المقدسة فردا الكلام الشرف تلين هون مقرنة سكرامة الشرف كومادا سومالية ayaa uga gudbaynaa way jirtaa gobollo way jirayaan maamul goboleedyada way jirayaan laakiin khalad yaa laga fahmin kelmadda federaalka khalad yaa laga fahmin innagu waxaan u baahanahay maamulka in la baahiyo oo la geeyo gobollada ayaan u baahannahay laakiin dalka in la burburiyo oo 7 dowlad goboleed laga dhigo oo 7 madaxweyne uu yeesho oo la kala garan waayo yaa waddanka madaxweyne u ah yaanu ahayn la kala garan waayo doolimayn waxaan caawa aan rabaa inaan halkan dareenkayga ka cabiro dowlad goboleedyada Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha hadda madaxda ka ah waxaan rabaa inaan u soo jeediyo inay ka tanaazulaan fikirkii hore inay la shaqeeyaan dowladda dhexe inaysan noqonin kuwa loo adeegsado in lagu majaxaabiyo dowladda dhexe ee Muqdisho fadhida waa inay la shaqeeyaan waa inay tanaazulaan waa inay horseed noqdaan waa in Soomaali midan la helo wax ka macna inta ka sokeeya oo wax ku noqon karna walaalayaal ma jiro qabyaaladana aan la dagaalno
aynu maqaayadaha ka bilowno guryaha aan ka bilowno goobaha aan ka bilowno dadka qabiilka wada qabyaaladda wada aan la dagaalno taa iyadaan wax ku gaari karnaa taasaan wax ku noqon karnaa intaa markaan ka gudbo walaalayaal saad ula socotaan waddan sababta aan u midoobaynaa idiin sheegaya soomaalinimada ay muqadas u tahay soomaali waa madi soomaali male walaal markii dhibku inagu dhacay ee dowladdu inaga burburtay ee dhibaatadu inagu dhacday cid inoo soo gurmatay male soomaali cid kasta waxay u imaataa inay dhacdo inay dalkeeda boobto inay badaheeda qaadato inay khayraadkeeda iyo tarwadeeda qaadato yaa loo soo wada shaqo tegay aniga hadda ka hor hay-ad caalami aan u shaqayn jiray hay-adda caalamiga ah waxay bixin jirtay cunto free ay bixin jirtay waxay ku beegi jirtay gobolka jubbada dhexe degmada bu'aal ay ahayd waqtiga dadka ay soo goosanayaan beeraha ee fasalka ay goosanayaan iyo cunto free ah oo kumaanku mitirtag ah oo mitirtan oo raashina bay bixin jirtay si beeralaydu ay u niyad jabto oo qaxooti u gasho dalka waa la bilaqaysanayaa meel kastana looga soo duulay waxaan marka idin leeyahay fadhiga intaan ka kacno geeska afrika waddanka ugu qanisan ee ugu qaalisan ee geopoliticska waxa la dhaho ugu muhiimsan ayaynu leenahay badda waxaynu leenahay afrika ugu dheer waxaynu leenahay badda cas iyo badweynta hindi aan ku fadhinaa gacanka adduunka ugu qaalsan ee 50% ay maraakiibta adduunku maraan ayaan leenahay sababta laynoo maagayana waa sidaa haddaan dad noqon weynana dalka waa la dhacayaa waana la qaadanaya waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo tix yar oo gabaya 60kii xurriyaddaan helay hebello loo aasay nacabkii horraan laga eriyaa hootadii sidee hawadoodu waa inay mar kale helayna saaraane hanti iyo wuxuu eebbahay hibe inoo siiyey hawadaa macaan iyo dhulkaa laysku haystaaye waa laysku harag saarayaa heeska aan jirin hugunkaa baxaya iyo madfaca hore inoo dhaafay hamasiin ka weyn iyo waxbaan hil u gelayaaye inkastoo ay barkeed u hafradeen hadafku oo meel hii raacyadaa naga dhashiyo kuhunguri qaaday iyo inay dalkoodii huraan hanadadaa diidan hilin qudha inay qaadayaan waa midaan hubee oo maaq doloshiyo god bay hoos u qodayaane hadba waxay inoo sheegayaan been hiriirye leh haddaan laga hortagin soomaaliya xaalku waa halise hannaankii ciraaq baa socdiyo heerkii falastiina ha yeeshee hurdadu way xun tahay haatan oo kale inkastoo ay hamuun badan qabaan horarka ciideennu ninna heeriye uma qaadi karo hay filkiisa ay hurgumada dhexdeenna intaan hoys ka ilowno hubka inaynu wada qaadanno hadalku joogaaye haliyey iyo ninkii geesiya yaa loo hanwan yahay isu hisha oo kaca midnaba way habboonta intaasaa kusoo gogoynaya cawa salaamu calaykum doomahaygii baan nahay masaakiin baan nahay ilaahay oo raxmad khayr qabtaan kaa barin ilaahu abaarta iyo gaajada naga saar ilaahu rabbiga ilaahu ummadaaga soo deeq ilaahu raxmad baanu kaa barin aan cudur lahayn wadaan lahayn waafo lahayn wadarab lahayn ilaahay raxmad baanu kaa barin ilaahay oo gacmaha kuu horsan ilaahay oo intayadaas gacmaha kuu taagatay oo addoontaadiiya oo masaakiina ilaahay oo addoon gacantaada kuu taagtay ilaahay oo waa ka xishootaa ilaahay oo in raxmad nagu dhigo ilaahu raxmaddaada noo sug ilaahu galabtadaa noo sug ilaahay oo rabbi cirooliya iyo camo iyo gabdho iyo wiilal halkaa waxaan u taagannahay baryadaadaan u taagannahay ilaahay oo adaan ku baryaynaa ilaahu noo soo deeq ilaahu raxmad baanu kaa barin ilaahu ummaddaada u deeq ilaahu ummaddaada u deeq ilaahu ummaddaada u deeq ilaahu raxmad baanu kaa barin ilaahu annagana na xafid ilaahu waalidiinta carruurta laga qaatay ilaahu soo celi ilaahu kuwa jooga ilaahu rabbi oo carruurtooda u xafid raallahu ducaan wada waryaa ilaahayow rabbigayow kuwa buka ilaahu caafi inta jeelasha ku jidha ilaahu ka soo saar mahan abiib maxkamadda la saaray ilaahayow sharcigiisa sii ilaahayow sharcigiisa sii ilaahayow sharcigiisa sii ilaahu inta dhibaataysan ee sharciga laga haysto ama lagu daba joogo ilaahu sharcigooda sii ilaahu naxafid ilaahu naxafid ilaahu wadaan addoomahaagii baa nahay ilaahu naxafid dhammaantina aad ba umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullah marka hore waxaan u mahad celinayaa guddiga xafladda qabtay oo runtii shaqo aad u adag qabtay marka intaas laga soo tago waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa ra-iisul wasaaraha aynu wadaagno labada dhalasho ee soomaaliya iyo norway mudane xasan cali khayre sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa labada guddoomiye ee aqal ee soomaaliya mister jawaari iyo mudane cabdi xaashi intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisii cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo runtii qabtay shaqo
afartii sane ee ugu dambeysay taa oo dhalisay in si dimuqraadiyad ee xukunka lagu kala wareego intaa kadib waxaan xafladdan uga imid 110 kilomitir sababta aan uga imidna waxay tahay weligay maan arag qaran Soomaaliyeed weligay maan arag dawlad Soomaaliyeed oo xooggan oo dalka ka talisa calankan hadda u jeedaan halkan igu rakiban iyo calan qolkayga yaallo waa rajada keliya aan Soomaaliya ka haysto waxaan ka baqaa khasaaradan igu dhacday inay ilmaha dhali doona igu dhacdo waxaana niyadda mar walba geliyaa goormaad arkaysaa Soomaaliya oo dal leh oo wax la qaybsanaysa wadamada dariska ee bariga Afrika waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama ay haatan kaamirooyin horteeda yaalaan inaan u faro fariin ah oo Soomaaliya ilaahay ka cabsada oo rasuulkiina ka xishooda oo qabiilka iyo qabyaaladda Facebook la fadhiyo hala joojiyo war qabiil halkaan uu keenay inta meeshaan joogto ma jira qof qabiil u Yurub keenay oo may war ilaahay ka cabsada qabiilka joojiya war ilaahay ka cabsada qabiilka joojiya kuwa magaca raba inay yeeshaan qabaa'ilada la fadhiya Facebook please foodada iyo qabiilka laga joojiya waa maasantii waxaan idin leeyahay
waa ku ammaanantihiin hawsha wanaagsan ee dadkiina iyo dalkiina aad caawa u qabateen. waxaa ammaan badan u jeedinayaa xildhibaanada labada gole ee muujiyay rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed. waxaad ku qormi doontaan baal dahabi ah shacbiga Soomaaliyeedna ma hilmaami doona sida aad u tixgeliseen codsigiina idinkaga yimid. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre waxaan marka hore leeyahay hambalyo. markii xigta waxaan leeyahay xilka aad qaadeen waa ammaano ay diiday xilka iyo dhulka. waxaan idinka codsanayaa inaad ku shaqaysaan si cadaalad iyo ixtiraam ku dhisan tahay, aadna ka shaqaysaan soo celinta amniga iyo dhisitaanka ciidamada, isdhexgalka bulshada, rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed aad kor u qaadaan. mudanayaal iyo marwooyin, waxaanu la soconaa dowladihiina soo maray dalka soo maray burburkii dowladda dhexe inay ragaadiyeen khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waana cashir wanaagsan oo aad u soo taagneedeen. yaan khilaaf laydinka maqlin. golaha wasiirada tusa inaad isla xisaabtantaan si dhab ah. shacbiga Soomaaliyeed waxaan aad ka codsanayaa inaad garab istaagtaan dowladda. waxaa ii muuqda waa nuur iyo mustaqbal wanaagsan. Soomaaliya hore ayay u socotaa, dibna uma laabanayso. balanteenu waa waxqabad horumar leh. Soomaaliya ha noolaato. عليكم ورحمة الله وبركاته وإسلام يا دمان أصحاب سوق قابس حلفدان بني يرضى أضياشة قبلها دمانتين ميديا سيدو كلاتو آدي آد باين كوما هاد علينا يا كسو قيب قلق أكسو قيب قشان أو موجينا إنسان تاغير دين يسومالي نمدين يودن نمدين run ahaantii waxaan rabi lahaa inaan yacni dhowr arrimood aan taataabto haddii ay suuragal ay tahay. haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aan joogno yacni waxay noo tahay farxad maanta in isbeddel dalkanagii uu ka dhacay, waana wax aad iyo aad ah ugu rajo weyn. laakiin haddana haddaa dhanka kaleeta aad ka eegtid yacni dowladihii Soomaaliya soo mareeyay laga soo bilaabo Cabdiqaasim lagu xijiyo Cabdullaahi Yuusuf lagu xijiyo Sheekh Shariif lagu xijiyo Xasan oo ugu dambeeyo hadda maanta meeshaan soo gaarsiiyay in aan marxaladan maantadan ay baarlamaankan isbeddel weyn oo la taaban kara ay sameeyaan. laakiinse muhiimadda meesha waxay tahay wax alla wixii caqabada ahaa oo horay dowladda ay u soo mari jireen, hadday ahaan lahayd dhaqaale darro, hadday ahaan lahayd isqa qabsi, hadday ahaan lahayd faragelin shisheeyo, hadday ahaan lahayd ciidan la'aan, hadday ahaan lahayd wax walbaba abaar iyo yacni wax walbaba weli caqabadii ayaga ah waa wax meesha maanta noo taagan oo weli ay jiraan. muhiimaddana waxay tahay yacni markii laga hadlayo failed state ama fragile states, yacni waxyaalaha ugu waaweyn waxaa weeye bulshadii oo kala daadsan. taas micnaheedu waxay tahay dowladda waxay dhisi kartaa institutionka iyo habka nidaamka dawliga ahaa, laakiinse kama shaqayn karto inay bulshada isu keento ama quluubtooda ay isu furaan. tan ayadaa waa wax annaka nagu wada xiran. marka diyaar uuna inaan quluubta aan isu wada furno meel kastoo aan joogno. waxaa murtida hayda gabahaygan ku miisayaa maxamed cabdullaahi madaxweynaheena mudan marwiya mudanane aday ku mashxaraadayaan magaca Soomaaliyeed oo dhan kugu maqsuud mudaha mayra malagii ku dili lahaa. كان نوشك انت دلها اوكي انت ماشي waxay keenay ninkaan ay keenay oo Soomaali dhan soo bixiyay waan u jeedina amalena farmaajo ii geema ii soo qaada way asiga la soo qaada la keenay inta laga keenay mataqaani America laga keenay marka waxaan ii sheegaa runtii anaga meel waxaan joognaa wadanka adduunka ugu qabowga badan oo ugu barafka badan meeshaan ka imaanin wadanka ugu baaha badan lagu tilmaamo laakiin wadanka ugu taarjiirsan way adduunka
ما تقانين ولا جينا المؤجانسين حدان قعمها الإسكاق بسنن أون لآذن رنت الإسكوشين أوكي وحكوتي هذه وحواي صور له وضع تارت أبارة جرت موتان أوكي إني بر أبارتان أنت كوني من أبارتان هرت جرتو ما يخلور أو قلي أنا أمارتان أنفعس أوكي أوارتان جرتو 2 مليون سامع عوفة إيطاليا جراتس كوكينيس وايا موسكي يوصل صعطة ما وعلى إيطاليا موسكاس بس منه وماهي هاي ماخو أو معرة الضد أو مدحي وين أنا أنفعه war madax anaka madax kale ma soo socdo koow waxa kale ku sheega talyaani markuu cagaf keeno macal adiga cagaf ku saar aniga waa saxata lak waxa ku weydiina ani adina baxna ma naga rabo horta meesh tagno qasab ani adiga lugan ku bixina dadka diyaarada ay baxdaan ani adiga lugan ku aadina 5 sano ka bacdana tagina 5 sano ka bacd dadka abaaray u dhintaan ba waxaan sameeyaa war awaar wax liiraa ma jir Soomaal awaar ilaahay badus awaar ayda isku saadano Soomaali maxaa dhacay hallo yes Soomaali awaar kama jirto awaar ayda isku saadinayso Soomaali 2 mitir hoostiis biya laga qodi karaa Soomaali baday leeda malaayig ka soo bixi kartaa habeenkii markay jiifaan dada shabaq qorwato yaa waardeynay farmaajo waardeynay farmaajo kilgiis ma wax waardiin karee annaga ina waardiina naga rabaa farkaligeen ما دقدق marka waxaan sameeynaa maanta farxada meeshan iskugu imaanay runtii waana noo jeedin waxa kale nii sheeganaa wili ciyaartu way socotaa inaan baawis qaadano aan ku soo naqano oo soo fikirna rabnaa wixii Soomaali loo qaadan lahay haddaba soo sheega dadka waxay qaadayaan ku sheega rotis maris wax kale ma haynahay marka ani saaxiibkii was joogna ta sheeka yar ku daro oo maartay ninkii yartu waa maqan aan ka faa'iideysano sheeka waxa jirto wadankan dadka markay ku cusub yihiin waxyaabo badan bay isku qufulaan marka qoys wadanka ku cusub ayaa waxay sameeyeen maartay yal xanaqiya marka gabar wadanka ku cusub iyo xaajigeeda gabadhii iskuulkay tagtaa iyo meel kuushe marka waxa loo soo sheegaa ninkaaga ma ku taaban karo ninkaaga hadduu ku taabto waa la xiraa gabar kale ag fadhiso wallaahi waa beenta islaantaas iyo ku sirin islaantaas iyo ku sirin wallaahi waa la durayaa haddii aad dacweysid naagtaana isugaadi buuse naagtaan odagii ciiday u qabtay maalinta dambe odagii hadalku ka badbadi waxay istiri horta waxaan oo maartay macluumadan ay kuu sheegto naagtaa kale ay sheegto maanta ku tijaabi odagii xogaa odayga Soomaali oo dhinaca laga galgalan waxa odagii waa naagtii ku bilaabay booliska waxa iga soo gaara odayga waa ka dil rabe odagii booliska oo yimid waa la kacay waa la qaatay marka odagii markii la waday booliska waxay dhaheen adiga wadanka ku cusub tahay waa ku ognahay istaji wadankan dumarka lama dilo waa la basareystaa basareys وفات basareys Allah hadda iska bax mar kale ha isku taaban islaantii waxay u baleysaa ninkii booliska qaatay amisantaa moogtaa odayga intuu jidka soo socday mid saaxiibkiisa arkay wuxuu dhahay waray ma fiicanta war maanta qaad baa soo dhacay qaad fresh war madaxa bi xanuuna qaadka keen u dhahay nabad ninkii Israaciil gurigiisu tagay qaadkii loo barahay film weeraa loo jiray loo shiday weer waa taqaanimo filmaad dagaalka oo wadan la isku weerarayo filimkii loo shiday odayga filimkii af Talyaani ku hadlaa atera attenzione no ninka si fiican uu marqaam habeenkii markuu marqaamay wuxuu dhawaraan uu guriga aadaya jaw uu soo baxay furu haysta gurigiisa isku furay islaantii iyo caruurtii way hurtaan ninkii musqushu soo galay ma aragteen faaska mashiinka kan dharka lagu dhaqo markuu dharka ka dhamaado wuu yeeraa ninkii mashiinka dharka uu ma jeeday dhintaas uu kaliya u maqlay markaas wuxuu daa guriga bamba ku jirto markaas uu qeyliyay war haya warka kala carara atera attenzione dove una malmalata cunug jiran oo arkay wuxuu daa oo soo qaatay war naagta war maxaa kugu dhacay war guriga miina iyo bambo balaa lagu xiro dhahay ee soo bax aawa miinadi musqusho keen halkaan ku xirtahay waxay aragtay mashiinki war ay tir wacali oo durbaba oo biya durbaba lagu soo duray war waxay tir durbaba biya lagu soo duray marka
marka hoose waa wadanka dhibaato ka jirto waa ogtahay ama qulubteeda yani qaranimada ku jirta wallaahi alcadiim cirki iyo dhulka intaba way ka culustahay qofkii garanaya qaranimada waxay tahay uma garanaya anigu Soomaaliya ka gees qabiil baad isku leysaan anigu qof kastoo dhinta way damqa qasam billahi alcadiim waxaan ahay aan suuqi sheegay qof kastaba Kirista calaamadii uu caabudi jiraa kan suran anigu waxaan idin gabooyaa waxaan ahay dadka ugu wadansana wadanka hala istaago Allahu akbar qof idinku ooyay markii Soomaaliya ayadoo saawsi dhacaysa saa ilaahay u soo qabtay qof ma jiro ooyay laakiin taani waan ooyay afar habeen baan ooyo wallaahi oo bilaahi oo tallaahiya farmaajaha la ii geeyo mid baa yidhi farmaajo tolo maxay isku yihiin anuu farmaajo waxay ka galeen waddankayga anarkii oo dhintay ooye farmaajona waa madaxweynahayga ma garatay allaha rabbalcaalamiinka idin risqa u mahadnaqa oo waxa weeye anigu qabiilka ayaan ka soo jeedaa aad idinku maanta halkan ku joogtaan haddana ilaahay baad laba jeer dafirtaan laba jeer hadda farina waxa weeye dafirada ilaahay iska daaya anigu waxba idin ma yeelayo shakhsigani wallaahi inuuna shakhsigan rabbalcaalamiinka ku dhaartay waxba kaaga qaadi karin allaha rabbalcaalamiinku unbaa wuxuu kuu qoray unbaad helaysaa la soco waxa weeye waddanka Soomaaliya wuxuu ka dhismayaa waa dibadda ayuu ka dhismi lahaa laakiin inteena soo dhanba waxaan doonaynaa inaynu noqono madaxweyne ku xigeen ama walaal ma haysanaysaa walaal ilaahay baan ku dhaariyay madaxweyne la doortay inuu qof inuu noqonaya ilaahay idinka ayeeyay oo boqol jir muu keeno anu taasaan ku kalsoonay Soomaaliya waxaan rabnaa inaan u hambalyeeno madaxweynaheena iyo maxamed cabdulaahi farmaajo anaga iska qaadnay si waxaan ku shaqayn doonaa oo waxba qofka aan ku dalo waxaa gudoomiye oo ah jaamac oo aniga macnaha loogu daaweyn
jaamaca ay gudoomiye noo ah okay walaashay ubax xubin yaasmiin xubin fawziya xubin anfacna xubin anigana cabdisaaq waxaan rabaa xubin aan ahaa markaasaan kusoo dhaweynaya jaamac بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore ilaahay baa mahadle goobtan isugu keenay waxaan aad u bogaadinayaa dadkii ka shaqeeyey goobtan aan isugu nimaadno oo aynu arrinta sababfalka iyo soo jeedintan aynu hambalyaynaba aan isugu nimaadno waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego maadaama aanu ka koobannahay dad iskaa wax u qabsaa oo ka yar dareemay uun innagu waa dharigsannahay walbaaba wuxuu cunaa 3 jeer buu cunaa ama 4 jeer buu cunaa baqaaxida markaan tagno waxaa laga yaabaa 200 oo karoon baynu kaga kacnaa laakiin haddaad og tihiin oo aad internetada gashaan waxaad arkaysaa habar 70 jira oo leh 3 maalmood waxba ma cunin 3 maalmood waxba ma cunin gabadhaydii way dhimatay wiilkeedu wuu dhintay gabadh yar baa hadhay xoolihiina waa dhammaaday bilaa caleyk dowladi ma jirto dadka gaarayaana ma jiraan innagaa dad u ah innagaa dowlad u ah waa run haddaan dowladi jirin lama gargaari karo cid laakiin haddana dad baynu nahay wax cunaynu nahay miyaanayna weydiinayn maalinta yowmal qiyaamaha waxaanaynu cunayno dadkii islaamka ahaa walaalihiina u ka gaajaysan yihiin miyaa layna weydiinaya waa layna weydiinaya waxaana soo martay 3 waqti haddaynu soomaaliya nahay 1960kii ilaa 1969kii waxaa dalka soomaaliya loo yaqaanay oo loo bixiyey qabuurihii macaawumad yani dowlad yar baynu nahay laakiin waxaa umaynaysa gaalo xilisiinaysa 1969kii ilaa 1991kii waxaa loo bixiyey cudurkii mushkilada Afrika waxaa loogu bixiyey askar baynu noqonnay laakiin Afrika dhib aynu ku noqonnay gaajayna ma ahayn 1991 ilaa 1900 ilaa haddeer waxaa loo bixiyey cudurkii mushkilada adduunka iyo dhulkii geerida iyo gaajada bilaa caleyk ma geynaa السلام عليكم. وحنا دين هذا واضح أنا هذا يوم هذا لكن ما عندي شيء يا ما في على مواقع وحنا كنت جالس فورم الصومالي فورم ناس أوائل مستعجل هنا أنا وحي أشوف كمان أيام بالشاشة اللي بعطيك لو ماشي قف قصة أنت تنفذيها كي واحد بحلها كي متكلمها كي متقنا لعك أمورها لو ما تلحقوا سومالي ما توابدوني أنا واسمع علي لا إنسان سوقسيمه سومالي هنولات وعن لنا حالها قف كستوي بحسده مالتي سري مالتي مورتا كتاي واحد استوقفت بجلنا واحد من السماء عنه ولا دوما marka waxaad badan meesha ma jiro wixii qofkii maanta bixin kara ha bixiyo abaaraha ilaa iyo 25 bisha maalinta sabtida ahna akshuun oo Norway oo dhan waa la qaban doonaa kambaniyada dhan baa laga hadlay ganacsatayaasha waa laga hadlay Soomaalida gurgur baa loo galayaa cuntada intii karinaysa diyaar baa loo nahay dumarka special waxaan ka codsanaynaa inay isxilqaamaan oo wax noo soo kariyaan xataa mataqaana walaalahooda ayaga u fakaraya maanta dhimanaya inay u mataqaanaa u gargaaraan walaalayaal aan gacmaha isqabsano dhibaato waa ka bixi karnaa yaan maalin kasta hay-ad xun ah inaan gacanta u hoosano wax laga fiican yahay annaga is awoodi karna horena waa u tijaabinay abaarta dabadheer annaga keliya baan ka bixin adduunkan waa nala yaabay haddana sidoo kaleeto waxaan u sheegnay hay-adaha wadanka hijiro dhan oo soomaaliya u qaata mashaariicda inaan annaga soomaali ah ammaan ku istaagnay oo weliba aan u sheegnay mataqaana in annaga wax la imaan doono aan u baahnay inaan markaas loogu darayno ayagoo la yaaban bayna sugayaan aan gacmaha is wada qabsano maantana jeebkeena furno maalintaas waa naga fadhinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad aan ugu faraxsannahay
isbeddelka Soomaaliya ka dhacay waxaanu soo dhaweynaynaa dowladda cusub ee Soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa oo sii sabatinaynaa dowladdii hore ee Soomaaliya dadka halkan caawayda la taagan waa ururka gargaar iyo gurmad oo muddo sanad ka hor u istaagay inay ciidamadooda qalabka sida ee Soomaaliya ay caawiyaan tiimkeena waxaan go'aan qaadanay in aan waddankeeni dib u dhiskiisa aan qayb weyn aan ka qaadano waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya farmaajo waa nin mabda annaga aan xambaarsannahay aad iyo aad u taageersan sida aad wada ogtihiin dhammaantiin xasan cali khayre sanadkii dhawaa ayaa waxaan isku aragnay magaalada muqdisho waxa uu yahay waxaan idinkaga sheegayaa in yar markii aan arrinta aan u socdo ee aan u nimid waddanka anoo wakiilka ururka gurmad iyo gargaar xasan aad u farxay waxa uu yidhi hawsha ugu qiimaha badneed ee umma Soomaaliyeed ee qabata ayaa gacanta ku haysaa waxa uu yidhi abtidoona waxaan kaa codsanaa in aad arrintaas aad ku dhimataan u dadaashaan waddankiinana aad wax u qabataan anigana garabkiina taaganahay markiina waxa uu bilaabay inuu nala shaqeeyo nasiib wanaag maanta waa ra'iisul wasaarihii waddanka ninka halkaas idinkaga muuqda ee sawirkaas halkaas ka muuqda wuxuu ka mid ahaa ciidamadii 77 ragga kuwa dhaawacmay taangi ayuu ku gubtay maxamed siyaad barre allah u naxariisto xilligii dowladdii ayuu waxa uu geeyey jarmalka lagu soo daaway isagoo wada kabkaban dhammaantiisa ayaan daro dowladdii markay dhacday ilaa iyo hadda dhibaato ku sugan yahay keligiis maaha kuwo badan oo ka mid ah ayaa dhibkaas oo dhan wada haystaa ragga aan gacanta ku hayno ayuu ka mid yahay 10 sano ka hor ayuu lug ka jabay ilaa iyo hadda lugta way jaban tahay ilaa iyo waqtigan xaadirka markii aan dhakhtarka geynay ee aan u dirnay anagu halkan joogno dhakhtarkii la geeyey waxaa laga helay nasiib darro xanuun dhinac ah in sababkiisa dhinac ka mid ah baaba'san yahay uusan jirinba sababka kii kalena infectiona ku jira dhakhaatiirtu waxay isku wada raaceen dhammaantood intii la wada geeyey inaan la qali karin oo lugtaas aan la daaweyn karin waa ilaa maaragtay la daaweeyo daawadii u socota alxamdulilah annagaana halkan ka caawino السلام عليكم dhammaan master sharafka meesha fadhido iyo ururada bulshada ee meesha fadhido haweenka ragga iyo fanaaniinta dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal meeshan anigana khudba dheer ka jeediyo maana imaanin dal ummadiisaa dhisto dalkan maanta aad degantihiin aad iska soo dhiibteen waxaa weeye dadkiisi baa dhistay dadkii dhistayna maanta god bay ku jiraan waxaa weeye marka Soomaaliya waxaa weeye waa dal qaawan oo maanta baaba'ay farasarkii dowladnimo dhammaan aan jirin inkastoo waxaa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo waan isla shaqaynay siba marxalad xun baan ku wada shaqaynay ayadoo meesha la yiraahdo muxuu ahaa meesha la dhihi jiray maaragtay jubba iyo naloo fadhiyo annagana aan madaxtooyada joogno halkaasaan dagaalka ka bilownay madaxtooyadana aan maaragtay nalagu wareegsan yahay ilaa markii dambe ay dhacday inaan caasimadii ka saarno qoladii maaragtay meesha nagu soo weerartay nabadiidka ahaa السلام عليكم ومهدسنتهين مدن يا مروين waxaan iskugu nimid xafladda sharafta badan madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraheena asagana macaan xasan cali khayre
waxaanu leenahay hambalyo noqda kuwii dalka iyo dadkaba haga waa xabeebsanahay wax badan baan baarlamaanka iyo ragga Soomaaliyeed caayay laakiin bal caawo wax yar baa la idinka nimayaa banooniga ayagana kuwii hadee horumar iyo wanaag keena Allah ka dhigo dee haddii ay wanaagsanaan waayeen kolay kuwii hore raadkooda unbay wada raacay waa is wada raacaysaa hari maysaan ragga waana maqlayseen haddaad hadaag hagaajin weydaan waddanka nooga guuro meelo kale aada dardaaran duca wadata dowladdan u diirahayaa dardaaran duca wadata dowladdan u diirahayaa inaynan isdagaalin rabbi baan dalbanahayaa darajo waartiya ammaantinu tahay degdega darajo waartiyo lahatan ammaan degdega damiir ku shaqeeyo gidigina diir naxdaan wixii diifiyo na soo gaaray dahana weyn wixii diifiyo na soo gaadhay dahana weyn allow la daweeyo adiga wax daalacde allow la daweeyo adiga wax daalacde hambal ya ballaaran oo haybadiyo cisaale hambal ya ballaaran oo haybadiyo cisaale waxaan u habaynayaa yoon horumarinayaa waxaan u horumarinayaa yoon habaynayaa hubaal weeyaan oo hawshaan waa hagaag hubaal weeyaan oo hawshaan waa hagaag ee kuwada haasawa meelaan haraad lahayn kuwada haasawa meelaan haraad lahayn hambal ya duca wadata dowladdan u diirahayaa dardaaran iyo hambalya ballaaran oo haybadiyo cisaale waxaan u habaynayaa yoon horumarinayaa hubaal weeyaan waxaa hawshaan u galay hubaal weeyaan waxaa sii hagahajin jiray halyeeyadii kaa horreeyo hormuudka waday ee hambalya ballaaran iyo haybadiyo cisaale halyeeyadii kaa horreeyo hoggaanka waday halyeeyadii kaa horreeyo hoggaanka waday hubaal weeyaan oo hawshoodu waa hagaag hubaal weeyaan oo hawshoodu waa hagaag hareeraha iyo hortaba tagan oon ka harin hambalyo hareeraha iyo hortaba tagan oon ka harin hambalyo xasan iyo shariif baan u diirahayaa hambalyo xasan iyo shariif baan u diirahayaa ee kuwada haasawa meelaan haraad lahayn oo kuwada haasawa meelaan haraad lahayn haddaa baarlamaan lasoo doortay wada birlaba bisinka haddaa baarlamaan lasoo doortay wada birlaba oo haddaa baarlamaan lasoo doortay aanan baqin haddaa baarlamaan lasoo doortay ahaanan baqin badbaadada shacabka mooye aan behesa rabin badbaadada shacabka mooye aan behesa rabin qaranka baholaha ku dhacay baadi gohob ku jira naftooda bihimeeye sidii loo badbaadin lahaa taariikhda baaldahab ahaan buugga ihinku qoray taariikhda baaldahab ahaa buugla ihinku qoray ama aan boqolkiiba boqol bal kastoo ay tahay iyo barwaaqiyo nabad ku bashaala bari kastaba mudana madaxweyne mid yar baan ku oranayaa mudana madaxweyne mid yar baan ku oranayaa mas-uulka lagu saaray meeqaan haddaad ku darin midigta milatariga xogga ku mahamulayn magaca Soomaaliyeed oo dhan aadan midayn wixii madmadow ku jira oo dhan muran la tirin miisaanka cadaaladana miiska aanan la dhigin wixii musuq maasuq wada aan maxkamad la geyn masaakiin iyo haddaan matada aan danayn masaakiintiyo haddaad matada aan danayn miisaaniyadan dalkana macna ay ku bixin macaankii dowladnimo mudsa aadana oran macaankii dowladnimo mudsa ahadan oran mar qurahan kugu maqsuudne adnagu mudnaan inaadan macaan ahayn baan malahaynayaa xasanow xilkas baa tihiya geesi xeeheladeer waa ra-iisul wasaare xasanow xilkas baa tihiya
xeehela deer xigmadda garashada xaqiiqdii xulbahaad ka tahay ee xanaane xeebaheno xilweynuhay xaduudada eega oo yana nala ka xadin xasuuqa ka daaya ummaddiina xahasad wado xilkas ha loo yeesho xukunkoo xisaab ku dara oo xisiiyo sharaf warta waddankan ha lagu xasilo muddaan sadaalinayno la sugahaye muddaan sahadaalinayno la sugahaye soomaali siliciyo dhibkanya ka sahaari kara sinaan iyo cadaalad ruuxee samahini karo saldaana waartiyo wanaag yaa u sahamin karo maxamed kuma seeginoo waa saxiix la hubo salka halka had saartay rabbigay ha kuhu saqiro halkay santaadu soo gaartay samiya qayr rabbigay kuu sahal wixii kaga jira sadriga samada iyo ciidda labadiiba laga saxiix midkaan doonayna ku ducaysanahinayow dalkiiyo dibaddaba midkii loo dabahaldegow daraja dheeraada iyo qayrka dahadahshow dajiya daweeya iyo geesidaha cadow dajiya daweeya iyo geesidaha cadow allahow ada noogu deeqee dulmiga ka dhowr dabayl caafimaad qabtiiyo daadad soo horragmow dalkiiyo dintiiyo dadkaba geesidaha focow dalkiiyo dintiiyo dadkaba geesidaha focow nadaadihi daa'inka waa ku dohoranne haddaan dusdusta iyo dabahablayntaan laga dallicin horta dalkaan inuusan degin waa dareemaynaa degdeg ha lagu saaro labada dowladood oo dariska sida ugu dhaqsada badan ciidamadeenana ha la dhiso hana loo istaago noolaada oo sharaf ku noolaada shacab weynaha reer Oslo ama ku dhagaysateen wasaarihii Soomaaliya oo ka hadlay halkan ruuxantii farxad bay u tahay dhammaan reer Norway rag fara badan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay ra'iisul baarlamaanka uu ka mid yahay taliyaha ciidamada Soomaaliya ayaa reer Norway ka soo jeeda dhammaan iyo kuwa kaleba oo xildhibaanaha oo ilaasho ba ku jira dhammaantiin waxaan ka mahad celinayaa mar kale sida looga soo qaybgashay halkan hadda wixii ka dambeeya shirkeenu wuxuu isku bedelayaa qaybtii khudbada way dhamaadeen oo Shucayb oo ku wareejinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.